Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Daawadayaal ku soo dhowaada barnaamijkii Ogaalka Dunida oo aad ka daawataan janaalka Wanaag Media. Maanta waxaan kusoo qaadan doonaa hooyo gabadheeda la dardaarantay intayna dhimanin ka hor oo baraha bulshada looga aqoonsaday dardaarankii ugu qiiraha badnaa ee hooyo gabadheeda la dardaaranto. Gabadhan da-da yar oo lagu magacaabo Hannah ayaa barta Twitter soo dhigtay dardaarankan, waxaana dadka soo jiitay erey ay ku qornaa warqadda. Qoraalka dardaaranka oo ahaa mid ka kooban waano ku aadan dhanka waxbarashada iyo xiriirka ayaa waxaa barta Twitter-ga lagu sii wadaagay in ka badan 9,000 oo jeer. Hooyadan kasoo jeeda gobolka Indiana ee dalka Mareykanka laguna magacaabo Peggy Summers ayaa warqadan u qortay gabadheeda oo 18 jir ah iyo walaalaheed, waxayna tiri: Hannah, haddii aad akhrinaysid warqadan markaas qalliinkii ma guuleysanin. Waan isku day inaan cudurkan ka guuleysto, laakiin waqtigeygii wuu soo dhammaaday. Alle ayaa ii haya wax kale oo aan sameeyo. Ku dadaal waxbarashada, aabahana u samir. Waan ogahay taasi waxay noqon doontaa mid ku adag isaga. Peggy ayaa sidoo kale waxay ku tiri gabadheeda: u sheeg qof walba inaad jeceshahay, kuna raaxayso nolosha. Maalin walba ku xisaabtan inay tahay maalinkii adduunka kuugu dambeysay, sababtoo ah qof og ma jirto maalinka uu dhimanayo. Intaas ayayna Peggy kusoo gabagabaysay dardaarankeedii. Hannah ayaa BBC-da u sheegtay in akhrinta warqadan ay ahayd mid aad u adag, waxayna tiri: waxaan dhammaanteen akhrinay habeenkii hooyo dhimatay, waxa ayna ahayd mid aad u qiiro badan. Ugu dambeyntii, daawade, hooyadu iyo dhammaan waalidku